Assalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaal cusub inta aad muuqaalkan kusoo dhawaanin waxa ka codsanaya haddaad channelkan ku cusub tahay inaad subscribe ii saarto si aan u gaaro 1000 subscribe. daawashada filimada galmada ah waxa laga qaadaa dhibaatooyinkan. muuqaalkan wuxuu diiradda saarayaa arrin ku badan yihiin dhalinyarada qarnigan oo ah daawashada filimada galmada aflaanta anshaxumada. waxa arrintan lagu arkaa inta badan dhalinyarada da'doodu ay dhaxayso 12 ilaa 30 sano. waxa waayahan dambe soo badanaya saameynta xun ay leeyihiin daawashada muuqaalada lagu soo bandhigo anshaxumada. daawashada filimada ayaa sababa in maskaxda laga soo daayo hormoonada kiyaasha urta qofka, taas oo sahlaysa in dadka daawada anshaxumada ay qabatimaan. daawashada aflaanta noocan ah filmadan ayaa ku yeesha maskaxda saameyn waqti dheer qaadata. daawashada aflaantan maxay ka bedelaan maskaxda? daraasado badan ayaa tilmaamaya inay arrintan dhaliso dib u habeen ka dhacda maskaxda, taas oo bedel ku keenta qaab dhismeedka maskaxda iyo shaqada. waxay sababtaa in la qabatimo kiimikooyinka maskaxda iyo saameynta aflaanta anshaxumada. dopamine marka qofka uu sameynayo galmo iyo marka uu daawanayo muuqaalada lagu soo bandhigo galmada, waxa kor u kaca heer hormooneedka dopamine oo ah hormoon mas'uul ka ah shucuurta qofka. marka qofka uu badiyo daawashada, wuxuu jirka la qabatimaa heerka sare ee hormoonka dopamine. daawashada muuqaaladaas waxay dhalisaa in la qabatimo. hormoonkan waa fariin gudbiye laga soo daayo maskaxda, sidoo kale waa hormoon dhaliya rabitaanka galmada. saameynta aflaanta anshaxumada lagu soo bandhigo ayaa sahlaysa in maskaxda uu ku dhaco isbedel qaab dhismeedka ah iyo shaqada. hormoonada maskaxda qofka waxay u baahanaysaa inay dareento farxad ka dhalata dopamine. sidaa daraadeed qofka wuxuu badiyaa daawashada aflaantan, markastana waxa kor u sii kacaya awoodda waxa kicin kara sida qof inuu joogteeyo daawashada muuqaaladaas. filimada galmada ah waxay yareynayaan awoodda maskaxda. ragga daawada muuqaalada galmada waxay yareynayaan maskaxdooda. waxaa sidaas ogaaday ilmo baarayaal u dhashay dalka Jarmalka. aaga maskaxda ee loo yaqaano striatum area waa mid la xiriirta niyadda iyo farxadda qofka. qaybtan ayaa ka yaraata dadka daawada aflaanta xunxun. daraasad ayaa hoosta ka hareegday markii ugu horeysay in daawashada muuqaalada xunxun ay dhaawac jirka ah gaarsiiyaan maskaxda. dadka la qabatima daroogada iyo dadka la qabatima muuqaalada baahiye galmada waa isku mid. marka la saaro kombiyuutar, dadka la qabatima daawashada muuqaalada iyo dadka la qabatima daroogada, waxaa la arkaa in hal aag oo ka mid ah maskaxdooda ay kor u kacdo fariimaha laga soo gudbiyo. aagaas ayaa ah mid shaqo ku leh dhiiranaanta qofka iyo dareenka abaalmarinta marka qofka uu helo waxa uu rabay. daawashada aflaantan kadib, inkastoo aan ognahay daawashada aflaantan inay tahay diin xumo, waxaa jira dad badan oo aan ogeyn halista ka dhalan karta dhaqanka noocan ah. dhibaatada waayahan soo ifbaxaysa ayaa ah in dadka daawada ay la daristo howlgab kacsi oo ah arrin murugo badan ku keenta ragga halista ku ah in guriga ragga daawada uu burburo.